wanaagsan caawa axad 23 Diseembar 2018 wararkan idin hayna waxa ugu waaweyn madaxweynaha Soomaaliya oo dawladda iyo shacabka Sacuudi Arabiya uga tacsiyay geeridii Amiir Talaal bin Cabdicasiis xildhibaanadii dhawaan mooshinka ka keenay madaxweyne Farmaajo oo eedeymo u jeediyay xukuumadda Soomaaliya xildhibaanad sheegtay in dil toogasho ah loogu hanjabay oo ka soo carartay magaalada Kismaayo guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare ee dalka oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ururka midowga Afrika oo ansixiyay qorshaha AMISOM ee dagaalka ka dhanka al-shabaabka Jubbooyinka hay'adda badbaadinta suxufiyiinta waxa ay sheegtay inay baarayaan suxufiyiin lagu dilay gudaha dalka Soomaaliya adduunka intiisa kale wararkaan idinkaga hayno waxa ugu dooron meydadka shaqaale u dhashay dalka Russia oo Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu tacsiye u diray boqorka dalka Sacuudiga ee aynu walaalaha nahay boqor Salmaan bin Cabdicasiis Al Sacuud isagoo uga tacsiyay geeridii ku timid Amiir Talaal bin Cabdicasiis oo 87 sano jir ahaa qalada wararka Sacuudiga ee SBA ayaa baahisay inuu geeriyooday Amiir Talaal bin Cabdicasiis oo ahaa aabaha maalqabeenka weyn ee Sacuudiga Al-Waliid bin Talaal wuxuuna xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda Sacuudiga sanadihii 1950kii ilaa iyo 60maadkii wuxuuna soo noqday wasiirkii isgaarsiinta iyo sidoo kale maaliyadda ee dalkaas sidoo kale madaxda ka tacsiyay geerida Amiir Talaal bin Cabdicasiis kamid ahaa ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka difaaca ee dalka Kuwait Sheikh Nazar As-Sabah Ahmed As-Sabah iyo sidoo kale Sheikh Nazir As-Sabah Al-Ahmed As-Sabah ana uu ugu baaqay amiirka geeriyooday waxana uu alla uga bariyay amiirka geeriyooday in jannadii firdawsa ahayd alla uu ka waraabiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ka mid ah mas'uuliyiinta caalamka ee tacsida diray ayaa waxa uu tacsidaasi u gudbiyay boqorka dalka Sacuudi Arabiya boqor Salmaan bin Cabdicasiis xildhibaanadii dhawaan mooshinka ka dhanka ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu gudbiyay golaha shacabka ayaa dhinaca kalena eedeyn waxay u jeediyeen xukuumadda Soomaaliya sida warkan ku eegayo wariyaheena kalgacal mudanayaashan oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena qayb ka ahaa dhawaan eedeyntii laga gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ku kulmay maanta magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen xaalado kala duwan ugu horeyn mudanayaasha waxa ay soo hadal qaadeen in xukuumadda dhexe ee Soomaaliya ay si weyn ugu mashquulsan tahay burburinta maamul goboleedyada iyadoo tusaale ay u soo qaateen dhacdooyin dhowr oo ka dhacay maamul goboleedyada qaar sida Hirshabeelle Galmudug iyo waliba sidoo kale maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya waxa sidoo kale shirka lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu si weyn ugu mashquulsanaa burburinta maamul goboleedyadaas iyo waliba sidoo kale weerar lagu qaaday siyaasiyiinta aan ku fakarka ahayn dawladda Soomaaliya xildhibaan Salmaan Maxamuud Xaashi oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa ayaa si wada jir warbaahinta ula hadlay markii kulankooda u soo idlaaday waxaan kale oo hoosta ka xariiqnay in xukuumaddu ay joojiso faragelinta joogtada ah ee ku haysa baarlamaanka iyadoo oo baarlamaanku u xayiran yahay faragelin xagga xukuumadda ka socota ilaa iyo haddana uu muddo uu xayiran yahay shaqo ballaaran oo ummadda Soomaaliyeed ay baahi lixaad u qabto ayaa meesha ku cadilan waxaanu mar kale adkeynaynaa in baarlamaanka uu helo madax bannaanidiisii si uu u qabsado shaqadiisa dastuuriga ahayd ummadda Soomaaliyeed ay ka sugaysay lambarka 5aad waxaanu iyadana tilmaanay in amniga dalka wax laga qabto guud ahaan in xoog la saaro la dagaalanka argagixisada in la furo jidadka u dhaxeeya Muqdisho iyo gobolada in la tayeeyo ciidamada qaranka iyadoo la wada ogsoon yahay in badan inay xukuumaddu ku howlan tahay waxyaalaha aan necessary ahayn dadka Soomaaliyeedna waxba soo kordhinayn oo ah caburinta iyo maaragtay jidad la xiro iyo siyaasi la dabagalo iyadoo ay dayacan yihiin howlihii qaranka ee ummadda Soomaaliyeed ay wada heelanayd madaxweynuhu wuxuu ku mashquulsanay inuu carqaladeeyo kalana diro dhibaatooyin u geysto dawlad goboleedyada dalka ka jira waxaa laga bilaabay Cali Cabdullaahi Cosoble waxaa lagu xijiyay Xaaf
aa lagu xijiyey shariif xasan inta dhimanna haddaa loo socdaa madaxweynuhu meesha xasilooni siyaasadeed oo ka shaqayn lahaa wuxuu ku mashquulsanay in nidaamkii federaalka ah ee dastuurka dalka asagana lagu soo doortay uu ka hortago burburyana labadii sanoo lasoo dhaafay madaxweynuhu wuxuu ku mashquulsanaay inuu weeraro siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen cabdiraxmaan cabdishakuur cabdi qaybdiid wuxuu jajuub iyo si sharci darro ah uu gacan geliyey Ethiopia muwaadin Soomaaliyeed qalbi dhagax asagoo ilaa maanta aan ka cudur daaran asagii xukuumaddiisa waxa xusid mudan haddii baarlamaanku waa diiday dabcan laakiin xukuumaddu ilaa maanta kama laaban madaxweynuhu wuxuu daraad soo afduubtay muwaadin Soomaaliyeed asoo ciidamo Ethiopiana kaashanaya Abu Mansuur Robo oo asagu oo baasaboor diblomaasiye iyo baabuur tignika baydhabo ugu diray baabuur bullet proof kadib markii uu ka waayay wixii uu rabana uu ka soo afduubtay xubnahan waxay dhawaan ka noqdeen eedayntii madaxweynaha Soomaaliya ay ka soo gudbiyeen waxaana ay sheegeen si looga gudbo eedihii dhawaan madaxweynaha Soomaaliya ay ka soo gudbiyeen in gabi ahaanba uu qaato talooyinka loo jeediyo isla markaana faraha lagala baxo burburinta maamul goboleedyada iyo waliba sidoo kale iyagoo ugu dambeyntii soo jeediyay in la sii daayo wadaadka Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo wali dawladda Soomaaliya u xiran xadiista xasan kalgacal warbaahinta dalsan muqdisho xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo sheegtay in dil loogu hanjabay ayaa waxa ay eedayn u jeedisay maamulka Jubbaland sidoo warkan ku eegayay wariyaheena Xuseen Washington xildhibaan Qadiijo Kuweyd oo ka mid ah baarlamaanka Jubbaland oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sheegtay in magaalada Kismaayo ay kaga soo carartay dhibaatooyin ay kala kulantay madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Jubbaland waxay sheegtay in dastuurka maamulka Jubbaland la hareer maray isla markaana habka loo soo dhisay maamulka Jubbaland uu yahay mid qaldan oo dadka qaarkood lagu xaqray waxay sheegtay xildhibaanada in dhowr mar ay isku dayeen in ay waxyaabaha qaldan ka saaraan dastuurka ha yeeshee taas la diiday ayna laga hor istaagay mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland xildhibaanada oo waraysi dhinacyo badan taabanaysa siisay warbaahinta dalsan ayaa waxay ka hadashay meesha waxaan ka cadaynayaa oo dawladda federaalka u sheegaya kale wax walba hadda iyada oo markaan garwadeenka ah beesha caalamka iyo international community waxa noo soo kuuskuusana aan ka codsanayaa dib in loogu noqdo dastuurkaas dib in loogu noqdo oo cadaalad lagu fariisiyo cadaaladda markii lagu fariisiyo cadaaladda dadka deeqda marka kan shan qaato kana shan ha qaato ilaahu may 200 gaaraan may 150 gaaraan may 120 gaaraan intay rabaan ha gaaraan laakiin adiguna intaas oo xabba iska qaadato ana aan laba la taagnaad waay ma 9 bilood anu kuma dhalan miya may xoogaysaa maalin walba waxaan kala rabaa madaxtinimada Jubbaland sanadba in cid loo dhiib oo rotation ay noqoto sanadba cid loo dhiib sanadkan cid aan haysay sanadkan Soomaaliya iskale iyo wuxuu cagaha ku wato in dastuurkaas lagu saleeyo qayb sax aniga been ma sheegay aniga leema soo masaafurin halkaas dil laga qabto qofna diyaaradda ma soo saaray marka aan aga jugleyn ka imaanaysa raggi fulinta wasiiradii qayb kamid ah madaxweyne ku-xigeenkii labaad laakiin qofkii la dilo madaxweynuhu dadka waa u toogtaa qofkii la dilo waa u toogtaa qofka lama waa ku nacay kaliya qofka looma tuuro laakiin inta ka hooseysa waa daalimiin waana hudhud wararkayna soo xalba dadka ku diraan ula bariistaan marsuufkoodana wuxuu ku egyahay inay maaragtay war ay la ordaan wadankana wuxuu rabaa wax qabasho ee war iyo dulmi ma rabo waa lagu dilaa badda lagu geynaa leeyahay kuwa Soomaaliha ila sheeganaya ay dhahay saas gabagabadii xildhibaanad Qadiijo Kuweyd ayaa waxay sheegtay in loogu hanjabay in xeebta magaalada Kismaayo lagu toogan doono haddii ay joojin weyso hadallada ka dhanka ah dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland ee xeerosaadka baarlamaanka Jubbaland isla markaana sidaas darteed ee magaalada Kismaayo kaga soo carartay ay u timid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare ee dalka ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho kuwaasoo ka hadlay xaaladda dalka uu marayo kulanka ay maanta diradda waxaa lagu saaray qaraxyadii shalay ka dhacay Xaawataako iyo qubaro kulanka looga dhigaystay nidaamka federaalka
mudane mawliid xuseen guhaad oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu tacsi u diray ehelada iyo asxaabta iyo dadkii ku geeriyootay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho iyagoona sheegay markaasi in ay ahaayeen wax aad looga xumaado sidaan hadalkayga ku bilaabay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan tacsi qaran oo tiiraanyo leh halkaan uga dirayaa muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku geeriyootay qaraxii arxandarrada ahaa aan loo aabadayn ee dhacay shalay oo ay taariikhdu ahayd 22 kaasoo dhacay xilli uu bini aadanku shaqaysto oo barqa ah kaasoo ay ku nafwaayeen ciidamadii qaranka Soomaaliyeed noocyadiisii kala duwan booliis nabad sugid maxaa la yiraahaa asluub ciidamadii qaranka Soomaaliyeed sidoo kale waxaa dhibaato soo gaartay maato iyo shacab Soomaaliyeed oo halkaasi ka dhawaa waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya intii dhimatay ee qaraxaasi ku dhimatay ilaahay jannadii ha ka waraabiyo inta dhaawaca ah ee ku jirta isbitaalada waxaan leeyahay ilaahay ha caafiyo xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa midnimo wada shaqayn looga hortago xasilooni darrada iyo qaraxyada iyo dhibaatada dalka ragaadiyay waxaan si gaar ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaya oo aqalka sare ugu horeeyo in loo geysto gurmad iyo ka warqab dhaawacaas ku jira isbitaalada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee dalka ayuu kaasi ahaa hay-adda badbaadinta suxufiyiintu waxa ay sheegtay inay baarayaan suxufiyiin lagu la-yahay gudaha suxufiyiin lagu dilay aan idhaahdo ee gudaha dalka Soomaaliya maxamed cumar maxamuud ayaa ka warramaya hay-adda caalamiga ah ee badbaadinta suxufiyiinta ayaa waxa ay sheegtay in ay baaritaano ay ku sameyn doonto dilal kala duwan oo loo geystay suxufiyiinta Soomaaliyeed hay-addu waxay fadhigeedu u yahay xarun ku taal magaalada New York ee Mareykanka waxaana ay sheegtay inay baarayaan suxufiyiintii lagu dilay gudaha Soomaaliya xiriiriyaha barnaamijyada ee hay-adda CPJ Angel Quatel waxay Soomaaliya ku sifaysay dalka ugu khatarta badan ee suxufiyiinta ay howlgalaan waxa intaasi ay ku tartantay markii ay hay-adda CPJ ay bilowday inay diiwaan geliyaan suxufiyiinta lagu dilo caalamka sanadkii 1992 inay xaqiijiyeen in Soomaaliya lagu dilay 67 suxufiyiin iyo shaqaalaha warbaahinta xiriiriyaha barnaamijyada ee hay-adda CPJ Angel Quatel waxa ay sheegtay inay baaritaan ku hayaan 2 suxufi oo dheeraad ah kuwaasi oo Soomaaliya lagu dilay sanadkan waxa oo kale oo hoosta ay ka xariiqeen inay wadaan baaritaanka geeridii ku timid wariye Cawil Daahir Salaad iyo 3 ka mid ah saaxiibadiisii oo shalay ku geeriyooday qaraxii ka dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho CPJ waxay sheegtay in aysan weli kala cadeyn haddii uu Cawil Daahir Salaad bartilmaameed u ahaa qaraxaasi dhinaca kale warbixinaya hay-addu badbaadinta suxufiyiinta ee CPJ soo saartay toddobaadkii hore waxa ay ku sheegeen in 53 suxufi lagu dilay dalalka caalamka muddadii u dhaxaysay bishii Janaayo kowdeedii ilaa bishan December 14keedii ee sanadkan CPJ waxay xustay in suxufiyiinta la dilay sanadkan uu ka mid yahay wariye lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Miraxanshi kaasi oo ay kooxo hubaysan ku dileen bishii Oktoobar ee sanadkan